shanta subaxnimo 1996 bishii saddexaad 16 taasi oo ku beegan 27 Ramadaan balse xaaladdu way iska bedeshay sidii lagu waday sidaad noo sheegtay mudane ama aanu xogta ku helnay waxa jirtay in waqtiga loo qorsheeyay laakiin xaaladdu ay isbedeshay sababta kaliftay maxay ahayd ee aad hore u soo dhigteen dhawaantii way jirtay oo sababta kaliftay waxay ahayd waxa soo go'aamiyay imaaraadka Sheikh Said iyo xubnaha la shaqeeya soo go'aamiyay laba cisho oo horumariyo taasi ayaa kaliftay markaa aan hore u soo dhigno oo waqtigu isbedelo 16 bisha loo qorsheeyay laakiin waqtigu isbedelo waxaan u soo dhignay xilliga markaa sababtu waxay ahayd miyaa xogaad ka heshan qadar xogaan qadar ka helnay lafteeda ayaa keentay in aan hore soo dhigno oo aan soo dedejino sidii loogu talagalayna ayuu dhacay أين تم التجمع؟ قلت اسوي من الحاجات واحد قلت كيرس لو يقانا قلبت الضحى saacadu waa 5 subaxnimo maalinimo Arbacaa 14 bishii saddexaad 1996 waxaa dhammaan saraakiishii fulinaysay inqilaabka iyo xubnihii ka qayb qaadanayay ay isugu yimaadeen goobta loo yaqaan Keris goobtani oo ku taala galbeedka magaalada Dowxa ee caasimadda dalka Qatar iyaga oo sugaya saacadu intay gaarayso eber الخطة مدن waxaad nooga warbixisaa waqtigii aad sugeyseen saacadaasi iyo sida wax u dhaceen dhabaantii way dheereed oo sheeka dheer bay ahayd laakiin haddii aan isku dayna ku soo koobo hawshani waxa lagu talagalay in xilliga fulino markay 5 subaxnimo taagan tahay waxaan u qorsheynay baritaankani waxaanu ku helnay guutada loo qorsheeyay in ay fuliso hawshaasi isla mar ahaantaasina subaxaasi galaysay qorshaha waana guutada loogu magac daray Abu Ali ahaydna guutada ugu xoogan ee hawshani guutada Abu Ali waxa uu diyaarsanaa wax kasta oo uu baahan yahay ciidan fulinaya hawl noocan oo kala hadii ay noqoto hubkay ku fulin lahaayeen qaabkii ay u fulin lahaayeen iyo cidii la fulin lahayd iyo sidoo kale cidii lagu fulinaya hawshani waxaana loogu talagalay inay la macaamilaan isla mar ahaantaasina ku shaqeeyaan duruuf kasta oo adag oo ka hortimaada dhabaantii waanu diyaarsanayn oo suurtagal bay noo ahayd inaanu galno laakiin markii xaaladdu meel wanaagsan marayso ayaa waxa isbedelay mar kaliya jawigii waxa dhacday wax naga go'ay isgaarsiintii marka waxa loo hogaankii oo salahan wasiirka difaaca la soo xiriir lahaa meel naga la soo xiriir uu waayay sidoo kale hogaamiyihii ciidanku sidoo kale uu waayay marka taasi dhibaato nagu keentay dhabaantii way jirtay oo aan qudhada diyaar baan koobta ku ahaa laakiin waxa dhacday isbedel aan filaynin oo ahaa in isgaarsiintu go'day isla mar ahaantaasina ay suurtagal weydeen aan isla xiriirno taasi oo hawsha carqalad nagu noqotay hakadna gelisay dhamaan nimanku waa sida ay ku sheegeen diyaar bay ku hayeen meesha oo wuxuu diyaarsanaa xataa way siteen hubkoodii waxay ku dagaalgali lahaayeen laakiin waqtiga uu saamixay waayay oo hawlihii waa ku isbedelay isgaarsiintu waa tii ka go'day marka taas ay suurtagelin weyday inay galaan meesha hubkiisa jarmada noocyada waxa hubka ugu diyaarsanaa oo hub kasta oo ay ku fulin kareen hawshan ay soo diyaarsadeen taasina waxay u suurtagelinaysaa marka inay si fudud u fulin karaan hawsha balse isbedelkaas ay yimi mudane sidaan xogta ku helnay ama naloo sheegay waxa jirtay in qaarkood ay arrintan isku khilaafeen ama ay dhici weyday oo dhanka Qatar xubnihii joogay ka suurtagal weyday maxaa ka jira dhabaantii ma jiraan waayo wax
ama ka suurtageli waaya dhanka gudaha xubnaha isku xidhka ah may jirin wax ka suurtageli waayay dhinacyada kale la shaqeynaya may jirin laakiin dhammaan sacuudiga iyo imaaraadka iyo xubnaha la shaqeynaya dhan diyaar bay ahaayeen iyo bahrayn qudheedu laakiin xaaladda isbeddelka keentay isgaarsiintaasay ahayd guutada loogu magac daray Abu Cali waxaa lagu kalifay isla mar ahaantaasina qasab ku noqotay inay u ruqaansadaan dhanka guriga uu degan yahay Sheikh Hamid bin Tamim al-Thani hogaamiyaha ama amiirka Qatar ee waqtigan isla mar ahaantaasina ahaa amiirka waqtigaasi dalka Qatar ka talinayay dhabaantii way jirtay oo waan meesha waan diyaar baan ku ahaanay qodobada xilli waxa ka soo qoran tahay dariiqa Rayaan loo yaqaan dooxa dhaxmar ayaa guriga tagayay hawshuna dhankayga diyaar bay ka ahayd waxaana la shaqeynayay xubno neerasa oo ka mid yahay nin neerasa oo ka shaqeeya qasriga dhankaygana sarkaalka ah oo noo soo gudbinayay xogta oo sirdoon noo ahaa isaga ayaa noo sheegay markaa qaabka ay u suurtagelayso hawshani iyo xilliga loo baahan yahay inay suurta gasho iyo sidaan u geli karayno waxaana noo sheegay habeenkaa inuu sheekhu aanu wax waqti ama mashquul hawl ku ahayn ee gurigiisa iska joogay oo waqti ku qaadanayay taasina ay noo suurtagelin karto inaan si fudud u qaban karno haddii aanu isaga qabanana waxa noo suurtagelaysaa inaanu dooxo dhan la wareegno dooxa haddii aan la wareegno waxaan wargelinaynaa qoladii dibadda naga joogtay ee uu hogaaminayay sheekheen inna watay anaga markii hore waqtigii loogu talagalay oo ahayd saacadda eber marka ay marayso ama 5 subaxnimo waxa ay isku bedeshay 3 subaxnimo in la bedelo isla mar ahaantaasina hore loo soo dhigo waqtiga markaa waxaanu nimi goobta sacuudiga xuduudka ku taala salwa miya ha goobta salwa loo yaqaano ay ahayd halkaasaan joognay aniga iyo Hamid bin Jasim iyo Hamid bin Ciisa iyo niman badan oo kale goob toos baan u wada socono qaarkoodna way nala soo xiriirayeen kadibna markaan goobtaasaan xogaa ku sugnayn xaaladda markaas sidaas ay ahayd xubnaha soo garacay waxa kamid ahaa Maxamed bin Said iyo Umar Sulaiman oo si toos ah nala soo xiriirayay sikin xaaladdeedana ka wardoonayay nala socday nala shaqeynay wixii intaasi ka dambeeyay waxa carqaladeeyay sidii ay ka soo talaabi lahaayeen xuduudka kooxdani qabaa'il degan xuduudka u dhaxeeya Sacuudiga iyo Qatar kuwaasi oo dagaal kala hor yimid xubnaha reer Qatar ee ka soo talaabi lahaa Sacuudi Arabiya xuduudka waxa ay ku hareeray qabiil bay ahaayeen degan Sacuudiga xuduudka iyo Qatar u dhaxeeya markaas sideed uga soo fakateen ama ay hawshooda ka dhamaatay Maxamed bin Jasim iyo Maxamed bin Ciisa ayaa Sacuudiga la hadlay oo la shaqeynay wakaalada sirdoonka kadibna iyaga ayaa markaa u sheegay in laga afkarto sida daraadeed Sacuudiga ayaa naga mashquuliyay oo fursad u siin waayay in ay nasi haystaan ama ay weerarka nagu sii hayaan kadibna muddo hadal socday waan ku guuleysay markaan ka soo gudubno oo sidaas markii ay xaaladdu halka marayso waxa soo garay amiirka mandaqada Riyadh Amir Salman bin Abdul Aziz oo ah boqorka waqtigan haysta dalka Sacuudi Arabiya isagoo oo ogolaaday xidhiidh uu la soo sameeyay amiirka mandaqada Najran Amir Fahad Khalid al-Mistiri kana codsaday in laga raro qabiilada degan xuduudka u dhaxeeya Qatar iyo Sacuudi Arabiya si ay Sheikh Khalifa ugu suurta gasho ujeedada uu doonayo ee uu ku qabanayo gacanta dalka Qatar isla mar ahaantaasina kaga talinayo gudaha Qatar waxaan u fududeeyay Amir Salman bin Abdul Aziz oo amiirka Najran la xiriiray Fahad kaasina fursad bay noo ahayd oo waxaan si fudud soo gali karinay gudaha Qatar waana soo galnay waxaan ka soo galnay dhanka xuduudka u dhaxeeya Qatar iyo Sacuudi Arabiya dhabahaantii abaal baan ugu haynayo Amir Salman wuxuu naga hor qaaday carqaladna hor taagneed ahayd qabiiladii weerarka nagu haysay oo dad badan oo kiisan lahayd hadii ay nasiihaysan lahaayeen